halkan waa mid ka mid ah xerooyinka barakacyaasha ee ku yaala magaalada Baydhabo oo lagu magacaabo Magor Imaayo. Waa goobta qaraxa uu ka dhacay, halkaas oo ah meesha dhabarkay dambe ka muuqata. Waa goob sandaqad ah oo geedo iyo baco la dul saaray ka samaysan. Waxay ahayd maqaaxi cunto kala duwan ee wadaniga lagu kariyo. Waxa badanaa halkan isticmaalo dadka barakacyaasha ereyadan degan iyo saldhig ciidanka booliiska oo meel aan ka fogeyn goobtana wax ka dhaceen oo iyagana mararka qaar isticmaalaan. Tirada guud ee ku dhimatay dadka goobjoogayaasha waxay sheegayaan in ay gaarayaan ilaa 5 qof oo 2 askarta ciidanka halkan jooga ay ka mid yihiin. Waxaana ku dhaawacmay ku dhawaad ilaa 5 qof oo kale. dadka badankooda kuwa dhintay iyo dhaawacmay waxay u badan yihiin dadka barakacyaasha maadaama goobta ay wax ka dhaceen xero dad barakacyaasha ay degan yihiin ay tahay. bismillaahi raxmaani raxiim. Aniga gudoomiyaha hoggaanka xaafadda wadajir ah Yuusuf Shaabal Dheere. dhacdada meel ku dheeday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. raan inta asiyaan inta dhimatay inta dhaawan ilaahay caafiyo. inna raamilun iyada dhibun ku dhiisay argaytan. walaan meel raay shaqada oo naad hibla weel meel korna laakiin walaan maqadir lahayn. markan way badhimatay 5 qofood yaa inta ka dhimatay 6 shacab iyo 2 askari. marka meel raay kulli ilaahay naxariiso dhaawac 3 qofood maamada iyo gabarto kale 3 qofood dhaawac iyo xaafadda meel ciidamada nabadgelyada kooyan aagi walbaar nimankii oo macna ay shaqadaas lahayn baaris lahayn kooyan baaran meel raay qarax kala meel ma ka jarna meel raay shaqada holo gududan wana noo naga deeqa ولما إلهي نريس ما هذا إلهي كريه أنا فرقف يريدو أفرد مت يريدو أنا متشان لا أنا لما أنا هذا ثم ذاك يقول أنت يا مودي هرتي مري عندنا هنا بركاتنا هذا صرتوا قوميسة أنا دين ولا يدين أنا بس شكله تيجي رورجلي وبعد مدة مسيبين إذا إلهي هذا لما لا أنت كان لما ma ahan markii ugu horeysay oo goobaha ay degan dadka barakacyaasha uu ka dhaco qarax noocan oo kala oo dad barakacyaal khasaaro uu ka soo gaaro.